laba gabdhood oo Soomaali ah ayaa ku soo baxay doorashada hore ee isreebreebka dalka Mareykanka waxaana ay Ilhaan Cumar ku soo baxday kursiga uu baneeyay Keith Ellison ee Congress-ka Mareykanka iyada oo ka soo baxday xisbiga dimuqraadiga. Isreebreebka doorashada ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee gobolka Minnesota ayaa la oran karaa waa mid uga dhigan Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka guul weyn oo taariikhi ah kadib markii ay ka soo dhex baxeen saddex ruux oo Soomaali ah, laba kamid ah ay yihiin gabdho. Sidoo kale gabadha lagu magacaabo Hodan Xasan ayaa ka soo baxday golaha Congress-ka ee gobolka Mareykanka halka uu Maxamuud Nuur ku soo guuleystay kursigii hore ee hore u haysay Ilhaan Cumar ayaa heshay codkii la dhiibtay 95322 oo u dhiganta 48.1% sida lagu sheegayo natiijada oo markii dambe la soo dhajiyay. Ilhaan Cumar oo la hadashay VOA ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay guushan waxayna tilmaantay in ay guushani gaarto in ay ugu suura gashay isku duubni iyo in ay samaysay ballanqaadyo ah in ay wax badan ka qaban doonto caqabadaha haysta Soomaalida. Samsam Ali Jaamac, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.